ولا ليال مانتو ومالين تاريخي ومالنا سووني بدقة أما حريجرك أما دقة دقة برنامج هذا أرتيه بحد ولاجيه برنامج كاسو كفولي عاصمة دي بنتلان وبرنامج يكون يردين كان عصا الصوماليات كان عصا تودو سيدي هذا بقى وريسك تيكرس برنامج كاس شنطة بقوله مليون أي جلسه وريسك إن اللي يبسن دون كم ورا كمان لكن وحي كل يردين إيه هرجليان وحي كل يردين بلعذا مقالة يسمع عدم بنتلان يكرر قادان وهذا أكتيهن سيدا هلكا كأركتين عدة وضح أو كدم بيس إنه سلامة يعماد سلامة يعمادنا وويلكي جودي دلنا جولس مركا شركة جولس runtii nabiga kaleey salaam wuxuu yiri ma la shakar Allah naas la shakar Allah waxaan dhihi lahaa inaan amaano oo acknowledge gareyno inay mudan yihiin maxaa yeelay dawladii markay ina ka burburtay oo haykalkii dawladdu burburay imkaaniyaadkii dadku u baahnaa oo asaasiga ahaa bay hirgeliyeen waxay sameeyeen telecommunication iyo internet meel kasta gaaray waxay sameeyeen koronto ilaa heer tuulo gaartay waxay sameeyeen lacagtii maanta oo telefoonada aan ku shubanayno waxay sameeyeen muqaayadaha bilicda sano adarteen magaalada maanta ay ku soo saaidiyeen waxaad kaloo arkaysaa maanta guryahan inay keeneen marka horta waxaan leenahay golis iyo intii ka farcantayba waa idin mahadinayna hadaan mujtamaca reer Puntland waxaan rabaa in yar arinta isku tashiga oo ganacsada jaamac sheegay inaan dib u milicsano barigii dadkeenu soo qaxay koonfurka soo qaxay hanti waxay lahaayeen guri iyo beer iyo nolol ka soo tageen iyagoo qaxootiya dhulkii aan bari hore ka hayaano gaari aan sugu soo noqonay in hay'adaha caalamka inoo soo gurmadeen waagaas dhulkan Puntland lama oran North Eastern baa la dhihi jiray maamulkii bariga jiray waxa hoggaanka u hayay General Maxamed Abshir Hamaan waxay rabeen sidii qaxootigii inay xariyeena ku ururiyaan oo hand outs na siiyaan Maxamed Abshir Hamaan ilaahay jannada ka waraabiye wuxuu fahansanaa hamiga aan leenahay iyo dadka aan nahay iyo mustaqbalkeena ifaya hadii sidaas aynu yeelno gudnimo inaynu ku dambeyn doono wuxuu diiday in waxyaabaha noocaas ah oo ah sidii qaxootiyo soo qaxay IDPs kaama in loo furo taasi waxay keentay qof kasta oo shilin eheladii dibadda markuu u gacan haatiye loo soo diray inuu ganacsi bilaabay ganacsatada Puntland maanta aad u jeedaan aaskoodii saasay halkaasina ka bilaamatay ilaahina ka baalmaray waxaan rabaa oo kale inaynu acknowledge gareyno dhiiranaanta iyo geesinimada ay sameeyeen ganacsatada reer Puntland hal qof iyo hal kooxna waxa ay bedeli karto inaan tusaale idinka siiyo tusaalaha koowaad waxaan ku bilaabayaa madaxweyne Mudane Saciid Cabdullaahi Dani dadkeenu markuu soo qaxay institutionkii dawladda burburay iskuulkii Nawawi oo magaalada Boosaaso oo ka hirgeliyay jiilkii ka soo baxay oo anshaxa iyo akhlaaqda iyo aqoonta iyo asluubka lagu koriyay maanta qaar baa wasiiraha qaar baa civil society hoggaankeeda haya qaarna ganacsatada hoggaankeeda hayaan waa mid tusaale nool oo ku filan waxa tusaale kale noogu filan Sheekh Maxamed Food Cadde oo ninka odayga golis aabihiis oo shiikhayga aniga Canada ahaa Cabdi Casiis Guureey Kaarshe Khaliif Ciise Mudan raggi iyo kumanaan kale tusaale u soo qaadanay oo golis buddigeeda lahaa waxa tusaale noogu filan Faarax Dheere Ilaahay uu naxariisto iyo Saciid Cabdullaahi Dani shirkadii Tawfiiq iyaguna iyo raggi kale oo iyagana jiilkooda ahaa ama asxaabtooda ahaa Abdullaahi Warsame oo reer Dubai aan islayn shirkadda Opel oo construction ka qalabkeeda maanta dalka inoo keena Maxamed Cabdisalaam oo macruuf ragga inoo horseeday ah hadda ma soo koobi karo ragga Ismaaciil Kutub baa kamid ah Jaabir Cali Gaban baa kamid ah Huruusa kamid ah gacaynta kamid ah dad aad u fara badan oo ganacsato ah baa ku dhiiratay aaska waxa aynu maanta ku naaloonayno inay inoo keenaan iyagana waa uga mahadinaynaa waxaan leeyahay qaran waxa dhisa ku wax qabta oo ku dhiirada bulsho waxay kortaa marka dadkeedu hami hal abuur iyo hiigsi ay leeyihiin horumarkuna wuxuu bilaabmaa marka hal qof hal fikrad ama hal talaabo ama mashruuc oo sidaan oo kale lagu talaabsado hadalka waxaan uga baxayaa dawladda Puntland waxay wadaa mashaariic aad u fara badan madaxweynaha u deyn doona wixii dawladda siyaasadeeda ah laakiin in argagixisada la dagaalamo booliska maanta muddada yar markuu shaqeeyay aad aragteen isbedelka iyo kalsoonida shacabka ee booliska dhex martayna oo la soo tababaray oo amnigeena maanta sugaya magaalada Garowe iyo Boosaaso yani meel kasta oo la geeyay maalin dhaweed nin ii sheekeynay wuxuu yiri nin xeer ilaalinta kamid ah maxkamadaha kamid ah Qardho baa wuxuu yiri muddadii yareed oo tijaabada booliska loo keenay Qardho kiisaska la keenay maxkamaduhu inuu cirka isku shareeray maxaa yeelay
boolisku markuu effective noqdo maxkamadihiina kiisaskii baa imaanaya amnigii dalkana waa la sugayaa waxa tusaale maxaa yeelay amni haddaan la helin ogaada nolol ma jirto marka la dagaalanka argagixiska iyo capacity-ga ama reformiga lagu sameynayo booliska iyo midka kale lagu sameyn doono soo socdo garsoorka lagu sameyn doono wuxuu keenayaa dadku inay dhul ay ku kalsoon yihiin ay helaan waxa kaloo la wadaa triple B-ga oo ah dawladdu iyo ganacsatadu inay partner noqon karaan dawladduna inay dhiiri geliso dhiiri afa maaha oo tokenism inay dhaqaale geliso oo ganacsada share la yeelato si loo dhiiri geliyo arrimahaasi waxa gacanta lagu hayaa oo gabagaba maraya oo aniga si gaar ah ii taabanaya siyaasadda qurba joogta Puntland oo ah haddaad fiirisid sector kasta oo Puntland waxbarasho hadduu noqon lahaa siyaasadda hadduu noqon lahaa investmentiga kulli hormuud waxa ka ah qurba joog wey inteena meesha joogta haddii la yiraahdo inta qurba joog gacan ha taagtay 80% qurba joog bayna runta hadeen isku sheegno qurba joogtu waa laf dhabarta dalkeena wey siyaasaddaasi marka waxay noqon doontaa siyaasadda hagi doonta xiriirka qurba joogta ee inaga hagi doonta wey marka waxa hadalka uga baxaya gacmo isku duuban inaan yeelano inaan dawladeena mataqaanaa kalsooni aan ku qabno maxaa yeelay dawladdu waa institution haykal oo dawli ah waxay noo qabtaa laakiin shaqo abuurka waxa sameeya oo in la dhiiri geliyo u baahan waa ganacsatada wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh